الرحمن الرحيم maanta kulankan waxa la isugu yimiday inaan cadeyno inaan nahay dhalinyartii saxeexday bayaankii soo baxay 15 bishii July 2020 taadan ka gudbo waxaan rabaa inaan ka hadlo maanta saddex qodob qodobka koowaad waxa weeyaan Soomaaliland ayaa leh waxaan ka eegi doonaa marka laba dhinac baan ka eegi doonaa ama laba taariikhood baan eegi doonaa taariikhda koowaad waxa weeyaan 1960kii intaynaan gobonimada qaadan Soomaaliland waxay ka koobneed beelo kala madax bannaan beel maamulaysan ma jirin saasay markaa ay kala ahayn 60kii ka hor 60kii ayaa waxa la nasiiyay gobonimadaynu helnay gobonimadana dhammaan beerihii markaa ugu tunka weynaa ee deganaa dalka dhammaantood ayaa gobonimada soo saxeexay marka Soomaaliland koow waxay ku aasaasan tahay oo ay unugeey koowada asaasku yahay waa beelo weeyaan marka Soomaaliland hadii la yiraahdo ayaa iskale waxa iskale beelii xilliga wada deganaa iskale 1960kii koodii July baynu ku biirnay Soomaalidii kale ee koonfur deganayd 30 sano la wada joogay waa la soo noqday 1991kii Burco ayaa beelaha Soomaaliland isugu yimaadeen shirku markii hore wuxuu ahaa shir nabadeed buu ahaa markii dambe wuxuu isku bedelay shir ay ka tashiya sababtuna waxay ahayd dawlad baa laga dhawaaqay Muqdisho oo dawladii manifesto loo oran jiray Cali Mahdi iyadoo aan laga tala gelin SNM halka u fiirsada iyadoo aan laga tala gelin SNM haddaba waxay doontaba haatee shirku markii dambe wuxuu isku bedelay ay ka tashiga marka waxaan uga jeedaa Soomaaliland mar labaadka waxa samaystay oo wadale beelihii maalinta wada joogay Burco shirkii lagu galay inta haddaan ka imaado inta muddadii ka dambeysay 97 wixii ka dambeeyay waxa la qaatay dimuqraadiyad iyo nidaamka xisbiyada badan leh bariga markii waynu cusbayn maynaan tijaabin laakiin maanta markaynu tijaabinay dimuqraadiyadii iyo nidaamka xisbiyada badan maxaa ka soo baxay waxaan tilmaami doonaa waxa ka soo baxay dimuqraadiyadii waxaynu u fahamnay in la codeeyo oo mataqaana qabiilka ama ninka deereeriga soo abaabushaa uu meesha yimaado dawladda qabsado dawladana laga dhigto company la maal gashanayo oo wixii la gashaday iyo wax ka badan dib looga soo celiyo waxaynu arkaynaa marka in labadaasiba lagu fashilmay tale waxaan ku soo jeedinayaa marka koow waa in lagu soo noqdo hayndaabkii beeraha oo madaxweynuhu qaban qaabiyo shir qaran uu qaban qaabiyo shirka qaranna waxa laga hadli doonaa afar shay baa laga hadli doonaa koow waa in laga hadlo waa in lagu heshiiyo dastuurka laba waa in dawladnimadii sida loo wadaagay aynu ku heshiino saddex waa inaynu ku heshiino dhaqaalaha ama cashuuraha ay kamid yihiin iyo dhaqaalaha dibadda waa inaynu ku heshiino sidii loo qaybsanayay ta afraad waa inaynu ku heshiino ciidanka iyo shaqaalaha iyo xalaalo wixii kale dawladda ka dhalanaya taas ayaynu Soomaaliland ku noqonaynaa wixii taa ka duwan anagu maanta diyaar uma nihin inaanu dawlad noocaasa aanu ka sii mid ahaano waxaanan cod dheer iyo cod gaanba ku sheegaya reer awdal uma baahna 13 waxay u baahan yihiin awood qaybsi runa oo la wada qaybsado inta aan soo sheego dhan la qaybsado intaas aan ku soo koobaya dhalinyarada iyo aqoonyahanka halkan iskugu yimid markii hore waan u mahadnaqayaa aad baan ugu faraxsanahay inaad u soo baxdeen oo dalkan u timaadeen inaad muujisaan rabitaankiina iyo dareenka aad ka qabtaan arrimaha taagan ee siyaasadeed Soomaaliland ka taagan aad baan ugu faraxsanahay qof kasta oo halkan yimidina waajib uu gutay waana waajib saaran marka la rabo in arrimaha masiiriga wax laga yiraahdo ma aha arrin saaran suldaan ma aha arrin saaran caaqil ma aha arrin saaran wasiir ma aha arrin saaran qof gaar ah waa arrin dhammaanteena saaran aad iyo aad baad ugu mahadsantiin hadalkaygu wuxuu bannaan doonaa inaan idinka la hadlo waayo cidda wax goosanaysa ee wax rabtaa waa idinka weeyaan walaalayaal taariikhda kamay dhicin oo meelna laguma hayo dad wax isku qabtay oo wixii isku hayeen cidda wixii la isku haysatay intay maalin soo qaaday ay dadkii kale isku hayeen inta uu keentay tiraado wixii aan isku hayna waa kan hooy noo qaybi ama hoo adigu qaado taariikhda kamay dhicin meernaba laakiin taariikhda waxa ku xusan wax la kala ritay ninka haystaan oo difaacanay ninka kale cadaaladda doonayana uu rabay inuu rito ayaa taariikhda ku xusan waxa taariikhda ku xusan isbedel kasto dunida ka dhacay muu sameeynin suldaan muu sameeynin caaqil muu sameeynin nin weyn oo cirali waxaan taa u leeyahay waxaad qalbiyadiina ka saartaan isbedelkaynu doonayno iyo cadaaladaynu doonayno dadka ugu mudan ee keeni kara ee ridi kara ee dhalin kara waa inta halka joogta soo saama war ma odaybaynu masiirkeena u daba fadhiisanaa ma caaqil baynu u daba fadhiisanaa haddii ay nacaawinayaan oo waajibkooda gudanayaan waynu u baahnay ha yimaadaan way dhammaatay waqtigii masiirka ummadan qof uu masaariifaysan lahaa way dhammaatay waqtigii uu qof
danta ummaddan uu meel ku gaari lahaa way dhammaatay xilligii maad aragtay qof inta bakshiish la soo siiyo la odhan jiray ordo reebelsi waxa dhammaatay boorama 3 reer baa ku hirdamaya war adeer bari toole waxaynu soo dhaxsanno jifo kaliya qaadato war soo saama soo saas kuma niyad sameey walaalayaal kuma qanacsanin sida mashaariicda qaranka loo qaybiyo in sanduuqa SDF ka la yiraahdo ee ay beesha caalamku bixiso in 5% ay ka qaadato boorama 5% awdal ka qaadato ma cadaalad ba adeer waxa ku timid waxa weyn cid ku xisaabtamaysa oo daba socota oo raadsanaysa wada hadda kadib soo inaan daba socono oo ku taagnaana diyaar uma tiidina waxaad meesha ka saartaan nin cabsanaya guul ma gaadho nin xari ka cabsanaya waxa uu doonayo ma gaadho nin dil ma ka cabsanayaana danta uu leeyahay ma gaadho qofka doonaya inuu sareeyo sareynta waa loo dhintaa cadaaladda waa loo dhintaa waa lagu adkaystaa waxaad ogtiin haddii taangi iyo askari iyo xabsi iyo ciidan cid lagu haynayo dawladdii Tigreega halka fadhiday weyneed ee taangiyada badan lahayd maalin cad bay dad soo baxeen ku sanadood la adoonsanay inaga ma leena adoonsaday maya soo wadan dimuqraadiyeenu joognaa wadanaynu xaqeena dhaxsan karnaynu joognaa wadanaynu soo banaabixi karnaynu joognaa wadan intaasiba ka mamnuuc yihiin ayay intay iska hor qaadeen ay yiraahdeen we need a justice dimuqraasiyada baan u baahanay cadaalad baan u baahanay yiraahdeen maanta halkan aynu joogno waxa weeyaan iyaga ka xaraan baa inay soo baxaan laakiin inaga maanta way noo banaan tahay laakiin haddana qaarkiin baa guryaha joogo cabsoonaya soo inaad kuwa kala dhiirigelisaan soo baxdaa diyaar uma tiidina inta markaa ka imaado maalintii dhawatoole heshiis baa ka dhacay halka walaalayaal inagu raalli baan ku nahay shirkii burco wixii ka soo baxay oo ahaa in Soomaaliland gooni isku taagto oo ahaa in beelaha Soomaaliland iyo dadka Soomaaliland wada degaay u sinaadaan masabyada qaranka iyo manfaca qaranka maanta laakiin 30 sanadood ka bacdi looma sinna labada midna miyaynu 30 sano dambe aynu ku sii noolaanaa calooliyow iyo warwar iyo qanacsanaan laan Soomaha talaabo kasta oo aan nafteena ku qancinayna inaan qaadno Soomaha walaalayaal laba qodob baan idinku dardaaraya waxay naga xaraana inaynu niyad jabno waxay naga xaraana inaynu cabsoonno waxay naga xaraana inaynu daalno waxa kale oo naga xaraana intaynu ku jirno ma aragtay halganka wanaag iyo cadaalad aynu ku doonayno cadaaladu qof kasta waa wadane waxay naga xaraana inaynu cid ku xadgudubno waxay naga xaraana inaynu magaaladeena ileen xaaladani meelay nala xuli doonto moogine inaynu fadqalaliyo dhibaato ku galino nabadgelyo darre ku geysano Soomaha maanta waxaynu joognaa garoonkii Browle cidna kuma inaan duulin dawlad ma inaan carqaladayn bajaaj ma inaan hor istaagin halkan aan kaga hadlaynaa inagoo badan baan garoonka furanaynaa inagoo badan baan khayriyada tagaynaa Soomaha laakiin maxay naga reeban inaan carqaladayna dadkeena inaan dadka aynay naga reeban waxa weeyaan ka Hargeysa jooga madaxweynaha ka maanta isaga cadaalad u baahan waayo hadduu cadaalad sameeyo ilaahay agtiisana wanaag buu ka helayaa dadkiisa dhexdiisana magac buu ka helayaa laakiin intuu qaraabo kiilka iyo qabyaaladda iyo qof jeclaysiga ugu shaqeynaya ummadii dooratay iyo dadkiisa iyo wadankii ma aragtay uu dhistay uu kala yaxanayo aqoonsi la heli maayo horumarna la heli maayo waxa ku soo gabagabeynaya Soomaalida wada hadal la gula jira war Soomaha go'aankeenu intaan Soomaali la hadal inay Soomaaliland wada hadasho qanciso Soomaha Allah ta'ala wa barakat dhalinta ku nool gobolka Awdal say horeba u qoreen bayaan ay ku saxiixayeen dhalintan oo ahaa awood qaybsashada dawladnimada Soomaaliland ay maanta shirkeenan jira ay daaran yahay waxaan ku adkaysanaynaa haddaan nahay dhalinyarada gobolada galbeedka inaanu ogolaan doonin awood qaybsi la'aanta dawladnimada Soomaaliland ka jirta awoodan u janjeeda dhinaca qura awoodan u janjeeda beesha qura ay beel qura toonay deefti dawladnimo helayso beelaha kalena ay ka qatan yihiin ma ogolaan doono ma aqbalayno haddaan nahay dhalinyarada ma aqbalayno mana ogolaanayno awood qaybsi la'aan doorasho inay ku dhacdo awood qaybsi la'aan anagu awoodanu ka hadlayna ma 13 kursiin waa inaan dawladda ay hayaan aynu la sheer garayno marka wasiirada waa inaan equal aynu ka noqono equality waxa kale jira powerkaynu inagu rabnaa waa awood waxaynu tartamaynaa mar koobaad iyo mar labaad waa inaanu helnaa haddaan nahay dhalinta gobolada galbeedka awood qaybsi Soomaaliland waa in laga helo sinaanta xilalka kuraasteenii xilaalkeeni waxa haysta halka beeshaas waa inay iska soo celiso alaabtay noo haysay waa kuraastii dawladda xilkay noo hayso hay iska soo celiso awoodeeni bay haysaan inayna maamulaan kolba qof maamula xilku waa meerto inayna mar maamulno inay iyagu maamulaan waa xaq mar koobaad iyo mar labaad waxaan nagu
naga go'an inaan helno awood qaybsi maahan saami qaybsi we are not accepting saami qaybsi mana ogolayna saami qaybsi awood baan ogolnahay Soomaaliland ha loo sinaado xilalka marka amaana kugu raagtay maxay tiraa Soomaalidu xoolahagaad moodaa amaanadeeni baa ku raagtay 93 up to now they have the amaanadeeni marka ha soo celiyaan tacbasho meeshan ma taagni laakiin waa rabitaankeena waxaan rabnaa inaan ku cadeysanayna haddaan nahay dhalinyarada gobolada galbeedka waxaan rabnaa aqoonteeda inaan ku hogaamino dawladan ay aqoon la'aanta iyo cadaalad darradu ay biyo dhigatay waxaan rabnaa intay goor tahay warkayga xukuumadan beelowday way beel qurun baad xukuumadda haysata beel kale ka ag muuqato maanta dhawaytolo wad arkayseen beesha caalamka iyo afar ilmaadeeroon ba saxiixayay hatta saxiix kuma inaalihin marka beeshan beelowday dawladnimadan beelowday waa inay warkayga u dhugataa oo u dhaga yeelataa oo u indha yeelataa way maanta haddaan Soomaaliland teeda la xalin ta Soomaaliya wax laga gaarayaa yar cabasha waxa jirta rabitaan baa jira shacab madaxweynaha كيان إيه كوين بوحي وياه مسؤول ربيتان كقبل كعودان مركو حليو أيو سومالي لا قرقرت مكرا والله حد كرا مدح وينه سومال لنا ولي أي بيلا واحتمنا يقربان إلى حملة ذي حقيقيان كما أقبل إن سومالي لا حدث أنا هلا نلا حلا حق يجي يدول النمذج باور شيرين كيجي هلا نسي